waxaa lagu sheegay dowladda Israa'iil ee lagu beeray dhulka Falastiin ee la isbartamay qarnigii tagay mid weli ku jirta dhisidda ciidamada iyo nidaamkeeda difaaca. sidaa darteed dadka inteeda badan waxay isweydiiyaan maxay tahay ujeedada qasabka ay ka dambaysa askaraynta dumarka Yuhuudda. ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. waxaa lagu sheegaa hablaha Yuhuudda inay kala sareynta quruxda caalamka kaga jiraan kaalinta shanaad. Israa'iil ayaa lagu sheegaa inay tahay dowladda kaliya ee waajib kaga dhigta dhammaan muwaadiniinteeda inay ka mid noqdaan ciidanka, waana dowladda kaliya ee dumarka waajib kaga dhigta adeegga ciidan. Israa'iil ayaa dowladda kaliya ee kala bar dadkeeda ay yihiin ciidan, waana ciidan kaliya caan ku ah gumaysiga nolosha casriga ah. Israa'iil ayaa dowladda kaliya ee qaad dagaaladii ugu badnayd qarnigan cusub, taasoo ka liftay in kalbar wax soo saarkeeda gudaha ee loo yaqaan GDP-ga loo wareejiyay dhanka militariga iyo nidaamyada difaaca. Israa'iil ayaa dowladda kaliya ee 3 meelood meel ciidankeeda ay yihiin dumar, waana ciidanka ugu badan ee dhexdooda ka dhacda kufsiga iyo xadgudubka dumarka. baaritaano madax bannaan oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday in 10kii dumar ee ka tirsan ciidanka Yuhuudda ee 3 ka mid ah la kulmaan kufsi iyo xadgudubyo kale. adeegga ciidan ee waajib ku ah dumarka Yuhuudda ayaa 24 bil oo xiriir ah, kaasoo noqonaya ku dhawaad 2 sano. adeeggan wuxuusan waajib ku ahayn hablaha qaba xaaladaha gaarka sida guurka, dhalmada, uurka iyo kuwa gudanaya waajibaadkooda diiniga ah, taasoo gaar u ah diinta Yuhuudda. sababta askaraynta dumarka Yuhuudda ka dambaysa ayaa lagu sheegaa tiriyanaanta Yuhuudda, kuwaas oo gaaraya 8 milyan oo kaliya, halka dumarka ay ka noqonayaan 33%. ujeedada ugu weyn ee ka dambaysa askaraynta Yuhuudda ayaa lagu sheegay in ragga Yuhuudda lagu dhiirigeliyo ka mid noqoshada ciidamada ama adeegga ciidan ee khidmada wadankooda. ninka askariga ee Yuhuudiga waxaa waajib ku ah inuu 3 sano ka shaqeeyo askarnimada ama khidmada ciidanka iyo difaaca dadkiisa, markaasuu xor u yahay inuu dalbado sanado kale oo dheeri ah. ujeedada kale ka dambaysa ayaa lagu sheegaa in lagu qurxiyo sumcadda ciidamada Yuhuudda kuwaasoo gobol ka geysta dhulka Falastiin. sanadii 2000 waxaa la dhaqangeliyay xeer sheegaya in dumarka Yuhuudda ay ka howlgeli karaan furmaha ciidanka iyo goobaha khatarta ah, halka markii hore ay ka qayb geli jireen khidmada rayidka. dhaqankan waxaa aad u diidan Yuhuudda ku dhagan diinta Yuhuudiyada iyo Carabta ku dhex nool gumaysiga Yuhuudda.